Asalaamu calaykum asxaabtayda aan jeclahay waa idin salaamay dhammaantiin meel kasta dunida ka joogtaan waxayna leeyahay soo dhawaada. Maanta mawduuceena saa aragtaan sida qoraalka oo meesha ugu qoran tahay sidee ku iloobi kartaa qof aad jeceshahay. Sidee ku iloobi kartaa qof aad jeceshahay isku hilmaamin kartaa. Halkan waxaan kusoo gudbinayaa qaab oo ka caawin doona inaad iska ilowdo qof aad jeceshahay. Khibrad cusub oo saameyn leh. Tan waxay noqon kartaa tan ugu adag in la sameeyo, laakiin dhab ahaantii way ka sahlan tahay sida la filayo. Xaqiiqda waxay noqon kartaa uur ku taalo inaad booqatid meelaha ama aad qabatid hawlo adag iyo kuwa aad hore u soo wada qabateen aad qabani jirtay. Si kastaba ha noqotee maahan dhamaadka adduunka ee mar labaadna waad kala tagteen. Maahan in aad noloshaada qof aad ku xirtid waad is ilowsiin kartaa. Si dhab ah u jeceshahay oo maxaa la dhihi jiray aadna rabtid saa aday oo ku iloobi karto qof aad jeceshahay oo qof oo ku xumeeyay aad jecleed oo is ilowsiin kartid qaabyo fudud ayaa isku ilowsiin kartaa. Jaceylku uu yahay jaceyl aad u xanuun badan oo qalbiga daga. Haddana waad is ilowsiin kartaa. Noloshaada dhan ma siinaysid asaga jecleed ama is jeceshiin asaga uu ka tagay asaga uu qof kale uu ka raaca. Adigu waad ismaaweelin kartaa, waa is mashquulin kartaa, shaqooyin fara badan ayaad qaban kartaa, goobaha qurxoon ayaad aadi kartaa, jabi ku soo qaadan hore ugu sii wadatid oo maskaxdaada degsid. La adag in tusaale adiga iyo qoyskaaga ama asxaabtaada kale waxaad booqan kartaa meelo kala duwan. Markaas waxaad heli kartaa khibrad cusub sida inaad wax cuntaan iyo inaad sawiro iska qaadaan. Arrintani waxay saameyn fiican ku yeelan kartaa xasuustaada. Mid labaad waxaa waaye waa dilaa oo fadlan la xiriir qoyskaaga ama asxaabtaada. Xiriir la sameey qoyskaaga. Fura fiishadaada oo banaanka fiiri. Adduunyadu way socotaa. Adiga la'aanta marka waa inaad la socotaa kuma dhigi kartid qolkaaga oo kaliya micnaha soco oo banaanka istaag jabi yar soo qaada. Qaab kale oo aad ku hilmaami kartid qof aad jeceshahay waa adiga oo baxa xiro dhar cusub ama soco oo jawi fiican soo gal. Bilow socodka xitaa oo agagaarka xaafadda ha ku bixinin fikrad ama waqti taariikh hore aanan soo laaban doonin weligeed. Bilow socodka ku raaxayso muuqaalka iyo jawiga. Micnaha taa wadooyinka taraafikada iyo waxyaalaha istaan mashquulka badan oo ku dhoola caday oo dadka wadooyinka maxaa la dhihi jiray asxaabtaada dad horan kala dhunteen wadada hada isku aragtaan. Waxyaalo fara badan ayaad ku ilowsiin kartaa. Kasta oo maskaxdaada ku mashquulsan tahay socodkan fudud waxaad ka fogaan doontaa xasuustaas aad rabtay in aad ilowdid. Haysid meel aad aado. Taas waa qayb ugu fiican. Maxaa diiday in aad ku bilowdid dukaanka aad oo diriska kula waxyaalaha uu gadaayo soo kormeerayso oo iibinayo maanta soo arag. Mid kale waxaa waaye u oggolaaw naftaada in aad kaaga nixiso xasuusihii xumaa. Hal sabab oo aadan rabin in aad ilowdo ayaa in aad yeelatay xasuustaada ku reeb xanuunka badan. Halkii aad ku dhuumani lahayd geed hoostiisa oo ku xiri lahayd guri. Naftaada in aad la yaabto cabsato oo naxdo maadaama oo dareenkii la yaabka uu lahaa. In aad soo saartid maskaxdaada oo cusub waxayna ku xasuusinaysaa in nolol ay jirto jaceylka kadib. Qodobka kale hadal xasuustaada. Badanaa waxay wax ka qoraan waxyaabaha ay soo xasuustaan si ay u ilaashadaan dhanka kale. Haddii aad iska daysid in aad ilowdid marka waxayba kugu fiicnaan lahayd in aad waxba ka qorin noloshaada jaceylkaaga hore oo afkaaga uga hadashid xasuustaasay yaraanaya faafahinta aad sheegayso. Waxaa yaraanaya shucuurta aad dareemaysid. Miisaanka aad xambaarsan tahay ayaa yaraanaya. Wax kalaba iska dhaaf hal maalin aad stress isku furto ayay ka muuqani. Kale u ducey adiga naftaada. Marka wax kasta oo kale aad ku fashilanto waxaad ku heray hal arrin oo kaliya waa in la dukado.
Dukashadu waa hab wax ku ool ah oo lagu dejiyo naftaada. Waa hab wax ku ool ah oo lagaga dejiyo naftaada inta lagu guda jiro safarkaaga shucuurta ee lagaga adkaanayo qofka aad jeceshahay. Waa inaad maskaxdaada dejisaa, waa inaad salaada aad tukataa, waa inaad kala qofka aad jeceshahay Ilaahay haduu mid xun yahayna Ilaahay kaa reebaa, mid fiican haduu yahayna mid kasii fiican intuu Alle ku siiyaa. Qofka aad jeceshahay saas ayaad isku ilowsiin kartaa. Waxayna leeyahay ku kalsoonaaw qofka aad jeceshahay haduu tahay mid kasii fiican ayuu Alle ku siinayaa, mise haddii ay kuu qoran tahay ama uu kuu qornayna waaba meesheedii. Laakiin qof aad jeceshahay lisma lahaysiiyo, waxaan bini'aadam waaye wuu kaa tagi karaa. Hadduu mid kale kaa raacina mid ka fiican ayaad heli kartaa. Laakiin waa inaad maskaxda la dejiyaa, waa inaad naftaada aad waqti la qaadataa, waa inaad jawi fiican gashaa. Ayaa kusoo gabagabeynayna maxaa la dhihi jiray hadalkeeni iyo waxayna leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Asxaabtiina la sii wadaag, share-tan waa noo muhiim, like-tan sidoo kale. Waxayna leeyahay sidaas iyo fi amaanillah. Wixii fariina dhinaca comment-iga nooga reeb.